horta waxa waaye waddankan sharci uu leeyahay dastuur uu leeyahay inkastoo waxyaalo badan oo dastuurka lagu xadgudbay hadda waxaan ku sheegaa runtii waxa waaye annaga mucaarad iyo beesha caalamka runtii shakhsiyadeydu waa ka soo horjeedaani sababtan ku sheegaa mar walba warbixintay soo saaraan doorasho dadbanay rabaan doorashadii dadbaneed heerka hadda la marayo waa ka warqabtaa in dhammaan maxaa la leeyahay shirar badan ay dhaceen dhuusamareeb 1 2 3 5 xataa waa dhacay muqdisho lagu shiray haba yaraatee waxa ka soo baxay waxa waaye waxba kama soo baxay sidaa daraadeed beesha caalamka iyo madashaba waxa waaye dad u ololeynaya mar walba in shir la qabto oo maxaa la leeyahay oo dibandaabi ah aan waxba ka soo bixaynin meeshan baarlamaana jiro baarlamaanka Soomaaliyeed arintii madaxweynaha maalin dhaweed warbixinuu ka jeediyay wax hadda la sugayo waa baarlamaanka labadiis aqal waay runtii dadaal ay ku jiraan annaga waddankan qalqal in la geliyo maaha beesha caalamka saantiri maanta communique ay soo saareen warbixina ay leeyihiin waa la soo imaanaa mar kale waxa la soo imaanaya ma jiro waxa waaye imaansho dambe waa dhamaatay xaqiiqada jirtaan ku sheegaa waxa waaye hadda wixii ka dambeeyay waxa waaye baarlamaankana go'aan gaarayo waxa loo baxaa hal cod iyo hal qof bas hal cod iyo hal qof aan noo dhimamay doorasho dadban waa doorasho qaloocan waaye waddankan ma la rabo dawladnimadana inay istaagto saas daraadeed communique-gan ay soo saareen beesha caalamka iyo madashan ka soo horjeedaan waxa waaye waxay rabaan dibandaabi rabaan in mar walbaba lagu sii jiro arintan ay saan ahaad waddankan dawladdu u baahan yahay shakhsiyaad gaar ahna waxa waaye mar walba ma hor istaagi karaan maxaa la leeyahay dawladnimada Soomaaliyeed markaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa inaan maxaa la dhahay mar walba beesha caalamka saantiri hal iska dhaafay dad islaam oo jiro oo Soomaaliyan ah aan tashano baarlamaan shaqeynayo oo baarlamaanka kala bedelaya meesha joogo baarlamaankan aan go'aan ka sugaynaa gudoomiyaha baarlamaanka dadaal weyn u wada waxa waaye maanta waxa ka warqabtaan in maxaa la leeyahay warbixintii la keenay ku saabsaneed wax qabadka boqolka maalmood ee xukuumadda ra'iisul wasaare Roble iyo akhrintii saddexaad ee waxbarashada ahayd oo maanta la ansixiyay runtii waxa idin sheegaa annaga baarlamaanka uu shaqeynaya baarlamaankana jawaab laga sugaa waxa waaye hadda qaybintaas warbixintu ku saabsan wax qabadkii maalinta arbacada la soo imaanaa ka bacdi go'aan waxa gaaray labada baarlamaana gaaray xamra wax ka dhacay iyo dhibaa dhacay iyo waxaas ma jiraan waxa waaye ummadda waa daashay ummadan waxa waaye waxay ka daashay maxaa la leeyahay dagaal sokeey ka daashay cid hadda dagaal rabta male markaan annaga malaaqeen hadda waxa waaye maxamed mursal waaye asagan akhbaar ka sugaynaa iyo guddoonkiisa iyo baarlamaankan ku darsashay mar rabo saa ka warqabtaan haddaan rabi lahayn mar hore aan noogu dara aan dhihi lahayn laakiin dantaaba hadda noo keenayso sidaa daraadeed nimankan fidnada wada oo beesha caalamka saantiri maalin walba warbixin joogto ah keenayo waxa waaye dad rabo ma qarannimada Soomaaliyeed inay istaago madashana sidaas waaye waa dadkii xukunka hore u soo qabtay waaye waa ka soo horjeedaa warbixintii xalay ay soo saareen aan ka soo horjeedaa waxa waaye ha loo hiiliyo baarlamaankan wuxuu soo saaro ha lagu dhaqaaqo wax doorasho dadban ama doorasho qaloocan oo la aadayo ma jirto waxa waaye waa ka warqabtaan doorasho dadban waxa loo socdo qof walba oo musharax lacag u wata wuxuu rabaa maxaa la leeyahay inuu gato ergooyinkaas inuu gato maxaa la leeyahay xildhibaanada soo baxay oo haddaba ay leeyihiin lacagan ku siinayna maxaa la leeyahay xildhibaan soo noqo waxyaalahaas ay rabaan waa dibandaabiyo corruption waaye corruption kana waa nooc ka mid ah argagixisada waaye markaan waxaan wax ka sugaynaa waa baarlamaankeena Soomaaliya labadiis aqal ah waxay go'aan ku gaaraan ummadaas inay u keenaan wax dawladnimo keenay hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynaa inta soo gaban xildhibaan baarlamaanka naftiisa xilkiisa uu dhamaaday madaxweynaha xalay sideedaas xilkiisa uu dhamaaday waxa uu diidaysay madaxdii hore ee dawladii la yiraahdo shakhsiyaad waxa jiro qodob hay'adaha dawladda ilaa maxaa la leeyahay laga keenay xildhibaano cusub ay ka imaanayaan waxa waa si shaqeyn karaan wax diiday male waxa waaye hay'adaha dawladda hadii lagu dhahaa madaxweynaha waa ku jira aniga madaxweynaha runtii waa ka soo horjeedaa fikirkiisii maalin dhaweed waxa waaye qofkii ka soo horjeeday ahaa oo 13 gobol oo matalaada uu siyaasad ku raadinay ya dadkii ka hor yimid ahaa waxa waaye hadda laakiin wixii sharci ah waxa waa in lagu taageero annaga waddankan foodo uma rabno waxaan rabnaa in waddankan ayadoo saan leeyahay annaga wax la bedelay ay yimaadaan laakiin maaha beesha caalamku waxay soo aqrisay
habeen xalay ma seexanin waxa waaye guddoonkay ag joogeen ilaa saaka waa ag joogeen waxa waaye danta Soomaaliyeed kuma xirna beesha caalamka waxay haysataa waxay rabaan anaga haystaan laakiin anaga danteena aan gaarno markaan waxa waaye hay'adaha dawliga shaqeynaya baarlamaankana shaqeynaya madaxweynaha xilkiiba warba wixii dhan wuxuu u soo dhiibay baarlamaanka laga sugo waxa waaye waqtigiisi waa dhamaaday anaga waqtigeena waa dhamaaday laakiin waxa la sugaa waxayna bedeli lahaa ilaa ay ka imaanayaan go'aanka anaga iskale